فتفرق بكم wadada rasuulka hadda ka leexatidna waxaad aadaysaa wadadii kaloo khaladka ahayd rasuulku wuxuu noo sheegay laba xisbi alaa ina xizba allahi hum lmuflixuun xisbiga ilaahay waa guulaysanayaa mar waliba xisbiga shaydaankana waxa weeyaana waa xisbi khasaare marka adigu labadaa wado ayaynu dadka u kala sheegina marka waxa weeyaan ikhwat aliimaan aljihaad waa kelimad aad u weyn jihaadku macnihiisu ma ahan dad innocent in la dilo jihaadka waa macnooyin badan yahay jihaadku macaanidiisa waxaa ka mid a dadka inaad u gargartid nin baa waxa weeyaan rasuulka u yimid calayhi salaatu wassalaam markaasuu leeyahay yaa rasuul allahi ujaahid markaasuu leeyahay alaka alaka hooya ma leedahay markaasuu leeyahay nacam markaasuu leeyahay fajaahid ayada ku dadaal oo ayada u tag jihaadka waxa weeyaan wanaag kasta oo aad samaynaysid oo jihaad wanaag kasta oo jihaad aad samaynaysid oo jihaad waxbarasho markaad soo aadid waa jihaad rasuulka noo sheegaya يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع نينك أصبح وحبرشه فهو في سبيل الله حتى يرجع جهاد باكو جرتا ورونا لي الوحى ويان جهاد كوا معنوين بيان ذاتك إن للدلاء ما هن جهاد بلا معنى اللي قلت له هذا ليس جهادا مركا نينك لان جاهلك أورانا يا كتابا وضع كتاب كذا أنا أخريكم نينك لان جاهلك أو كلمة جهاد أنقريكم ونصيب ضرب من أن جهاد أنقري أقول إسكذا بالمعنى سي أيوك أورنا جهاد بانك على شكله ليس هذا جهادا وإنما هو جنون والجهادك وحكه الرأي إن هذا معنى سي أتفهمت جهادك وحويا جهادك وحويا وأن البدنية قرآنكم وحنو شيء قرآنك رسولك وحل أورنا يا عليه الصلاة والسلام وحويا qofka markuu wax baranayo kitaabka waxa weyn jihaad buu ku jiraa nashru al-ilmi wa jihaad qitaalku waa qayb jihaadka kamid dadku waxa la isku khaldaa qitaal iyo jihaad qitaalku waa qayb kamid ah jihaadka macnawi qaybihiisa marka jihaadka ayaa waxa soo gali kara qitaalkaas oo u baahan marka asaga ruuxiisa nin aqoon u leh inuu ku sheego oo ku leeyahay meeshan ayaa qitaalka uu ku haboon yahay كتب عليكم القتال وهو كره لكم قفك بني آدم كإله أسيع نغمي وحقوقي هاي بني آدم كوحلو أومي دقال كون نبي لكن سومالو دايل وجعلي كي حق هاي حتى دقال كمركا مركو قفك أو دقال لماي أو في سبيل الله أو دقال لماي شروط فربضا إيو وحي لا هاي وحيالا بضا أو لسكرم برنامج قارة وسامين دونا بإذن الله الكريم بسين لو أقاضو كلمة قتال كوا قيب جهاد كاملة انت كلا اسبتها بستدوى جهاد في سبيل الله مركا ولا ليال وحوية دادك يسن كو خلدمين نين أو حبا قرانين أساقا دان قارة وطا مصلحة شخصية وطا وكورنا ميا أنيقا كتاب كإلهي بان وطا وانو كد قال مايا دجال كان جوجيما إلى يوم القيامة. ورولا ريال وحوي هل كي كتالا دجال كجوجيما إلى يوم القيامة مركز أورانيست هل كي كتالا وحوي ترويع الآمنين ذاتك دجان لحبس جليو بقدين لو أبوره أرجح لو أبور أي حرام رسولك يقول يا هاي لعن الله من روع مسلما ninka qof muslim ah argagax galiya baqadin galiya nacalad ha ku dhacdo nacaladuna waxa weeyaan macnaheedu al-bu'd min rahmatillah ayadoo in laga fogaado naxariista ilaahay al-bu'd min rahma wala yalla marka waxa weeyaan ayna salaam wa kalma basiita hub rasuulka alayhi salatu wassalam hadithkan dhayso wuxuu ku oranayaa من زار أو عاد أخاه يقول الله له
طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. يا سلام يا سلام. xadiidka balaad u dhegeyso. man zaara aw caada akhaahu, ninkii waxaa la yidhi soo booqda walaalkiis, soo ziyaarta. ziyaaradu waxaa weeyaan xanuun ma jiro, jecel baad ugu timid inaad la sheekaysatid walaalka ayaad ugu timid. aw caad, ama waxaad u soo booqatay xanuun baa jira, waad soo booqatay. ninkii labadaa mid kamida sameeya, walaalkiis muslimka ah u sameeya mid kamida, ilaah baa oranaya, ilaah baa la hadlaya. qiimaha ay leedahay ziyaarada, qiimaha ay leedahay isbooqashada daraaddeed ayaa ilaahay la hadlaya. ninka wuxuu leeyahay tibta wataaba mamshaak, waldan, wax wanaagsan baad samaysay, wanaag aada u fiican baad samaysay. watabawa'ta manzilan fi ljanna, abaalna waxaa lagaaga dhigayaa jannada guri ku yaala. maasha allah, guri jannada ku yaala. qiyaas, imagine jannada gurigeeda ma iibsan kartaa? maa hiya hamanuha, qiimaha ay leedahay jannada. ha u moodin guri london laga iibsanayo ama baris laga iibsadayo ayaan annaga wax weyn u aragnaa. laakiin guri jannada laga iibiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, isaga oo noo raba inuu noo tilmaamo, ayuu wuxuu ku oranayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku oranayaa jannada meel yar oo ka mid ah, mawdicu sawti axadikum min aljanna khayru min addunya wamaa fiiha. meel yar oo jannada ka mid ah, jaydal ama karbaash in lamid ah, oo nus mitr oo kale oo jannada aad ka heshid, ayay waxay ka qiimo badan tahay khayru min addunya wamaa fiiha, dunyada iyo waxa saaran. shanta qaaradood, america, africa, asia, australia, qaaradaha caalamka oo idil waxa saaran oo dahab iyo dollar ah iyo daara ah, waxaa ka qiimo badan in yar oo nus mitr ah oo jannada ah ayaa ka qiimo badan. maxaad ku heli kartaa marka? ziyaaratu akhiik, walaalkaada ayaa soo booqatay. bal u fiirso, walaalka ayaa soo booqatay, markaaba ilahi wuxuu ku leeyahay tibta wataaba mamshaak, shahaada sharaf buu ku siiyey, wax fiican baad samaysay. bal ka waran nin madax hadduu madax ku ah, ama ra-iisul wasaarahaada ama madaxweynahaada oo kale hadduu ku yidhaahdo wax fiican baad samaysay, maalin walba dadkaad u sheegi lahayd. hadda allahu jala wacala ayaa wuxuu ku oranayaa tibta wataaba mamshaak watabawa'ta manzilan fi ljanna. jannada wax aan ku heli lahayn bal fiir. marka annaga taa waxaan ku bedelnay inaynu qori qaadano oo aan dhahnaa dadkaan dhamaynayna, dadkaynu dilaynaa, jihaad baynu ku jirnaa. war waxaas waa fake, wax jiraa ma aha. walaalkan sheekadaas waa gubatay, sheeko soconaysa ma ahan. dadweynaha waxaan u sheegaynaa maskaxdii, annagu waxaan la hadlaynaa dadweynaha, maskaxdiina kobciya oo aada wax u dhegaysta. oo nin jaahil ah oo aan jihaad aan qori aqoonin yuusan inuu ku shaqaysan. adiga ninka adaa u dagaalamaya, adiga qoriga haddaa dhigtid muxuu ku dagaalamaya? asaga saasaa loo cunaya. marka adiga laa tabic diinaka bidunya gayri, adigu waxba heli maysid. nin baa raba inuu kugu shaqaysto, adiga xabaday kugu dhacaysaa, asaga fafisar buu jifaa. waxa weeyaan adiga xabaday kugu dhacaysaa. walaala marka u soo noqo oo dhegayso, oo maskaxda dhaqan celin baan inii samaynaynaa. dadka waxa weeye qoryaha haysta, war qoriga dhigoo wax baro, war qoriga dhigoo dhegayso cilmiga. waxa weeyaan si aad noloshaada inta u hartay aad u badbaadisid. haddaba maanta waxa weeyaan waxaynu ka hadlaynaa jaceylka. markaan isjeclana maxaa imaanaya? almusaalaxa, inaynu midowno oo aynu nabadda maanta dalkeenna biidni illaahi aynu rajaynayno nabadda jabuuti ka socota in ay dalka lagu soo dabalo. nabaddaas ayaa imaanaysa, leanna waa la isjeclaaday, nabad baa ku xigta. war maanta nabadda aynu soo noqono. nabaddu canug baa ku dhasha, canug kuma dhinto. islaamkuna yucطi alahamiyata alkubraa fi lmusaalaxa, ahamiyad weyn ayay mataqaanaa musaalaxada ay siinaysaa. nabaddu waa wax muhim ah, waa rukni rakiin, waa rukni asaasi oo diinta ka mid a almusaalaxa. sidaa daraaddeed islaamku wuxuu aada iyo aada u adkeynaya nabadda.
ninka nabaddiidana